iyadoo nabadgelyadu ay tahay waxa qof kasta oo dunidan ku nool ah ugu jecel yahay inuu ku noolado si horumar iyo badhaadhe loo gaadho yaa taliyihii ciidanka jabhadda Suldaan Abubakar Cilmi Wabar Korneyl Maxamed Nuur Faarax maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay gudaanba inuu ka tanaasulay iskuna soo dhiibay ciidanka qaranka iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo halkaasina goobjoog ka hayeen inta heer gobol heer degmo saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland bilayska militariga iyo taliska madaxtooyada Soomaaliland haddaba iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay taliyaha madaxtooyada maayirka magaalada Boorama ay si weyn uga shaqeynayeen sidii ay ugu qancin lahaayeen Korneyl Dabeeco ku soo laabto dalkiisa halkaas ugu horeynba waxa ka hadlay hoggaanka dhaqanka uu ka soo jeedo Korneyl Dabeeco iyagoo sheegay inay si weyn ugu qanciyeen Korneylku inuu dalkiisa ku soo laabto ku qancinay in taliyihii jabhadda aara ee ka dagaalamaysa galbeedka awdal oo Maxamed Nuur Faarax Dabeeco waxaan isku qancinay inuu kala qayb galo dalkiisa iyo dadkiisa wixii horumar iyo dimuqraadiyad waddanka ka jira Maxamed Nuur Faarax ku magac dheer Dabeeco isagoo ahaa jananka jabhaddaas waxa uu isagoo iskii iyo aqligiisa iyo maankiisa wata isaga laftiisuna si niyad sami iyo walaalnimo ah oo qadarin la ayaa wuxuu ku qaatay in arrinkii aan u soo jeedinay inta ka dambeeyay saraakiisha ciidanka kala duwan ee iyagu maanta halkaasi goobjoog ku ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal iyo maayirka magaalada Boorama ayaa iyaguna si weyn u bagaadiyay ku soo laabashada dalka uu dib ugu soo laabtay oo kana tanaasulay fikirkii uu hore u aaminsanaa ee jabhadda waxaan cadeynayaa nabadgelyada gobolada galbeedka inay ka hirgashay maadaama aanu taaganay xafladii soo dhaweynta ee taliyihii ciidankii Wabar waanu soo eegaynay waxun baan lahayn halka meelahan baa lagu sheegay laakiin maanta waa wax noo soo korno mar hadduu nala joogo oo maanta gobolkii noogu yimi aad baan uga isagoo wadayaashiisii iyo dadweynihiisii iyo beeshiisii runtii ay hawshaas qayb libaxla ka qaateen runtii beesha Jibriil Muuse tolkaya waan uga mahad celinaynaa sida ay arrinka uga soo shaqaysay waana mid loo baahnaa leeyna tolkayo sida uu sheegayna waxa loo baahan yahay say ciyaartu hagaagto sida isaga uu sheegay iyo tilmaanta uu bixiyeen la raaco ayaa loo baahan yahay taliyihii ciidanka jabhadda Wabar Dabeeco waan soo dhaweynaynaa ugu dambeyn Korneyl Dabeeco oo sheegay intii muddo ayda uu ka maqnaa dalka inuu wada hadallo kala duwan kula jiray dawladda Soomaaliland iyo hoggaankiisa dhaqanka beesha uu ka soo jeedo isagoo sheegayna wixii haatan ka dambeeyay wax kasta oo Soomaaliland uu ka tabanayo inuu miiska wada hadalka ku dooni doono waxa uu yidhi ninku de kolba siba isku tastaa go'aankii hore ee ku baxay waan ka soo tanaasulay kolkan abkay iyo dawladda Soomaaliland intaba la tashaday si adba uga soo noqdo anagu wixii aan tabanay inaan miiska ku sheegano isku soo wada duuba waxay ahayd 2015 markii uu ku dhawaaqay Suldaan Abubakar Cilmi Wabar jabhaddii iyadu ka dagaalamaysay gobolada galbeedka iyadoo ugu dambeynna ay tani maanta noqonayso jabhaddaasi ciidankeega maamulayay inuu dawladda Soomaaliland isku soo dhiibo inuu wax ciidan oo dambi ku hadhin jabhaddii Suldaan Wabar waa Hurri Axmed Hurri telefishinka caalamiga ee Hon Cable magaalada Boorama.